ninkaad u timid inuu wax walba og yahay oo weli yahay si lagugu qanciyo waxaa lagu leeyahay cabdiqaadir hebel hebel sow maaha haa sow halkaa ma degenid waxaad leedahay haa intaasoo caruur aad leedahay sow maaha alla sheekh ayaa u sheegay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي wanaagsan daawadayaal halkani waa xiisaa wararka kusoo dhawaada barnaamijyada alaabahada iyo kale aad la socotaan waxaana bal ku eegi doonaa arrimaha ka dhex dhaca bulshada markaas soo laabta isla markaana dhibaatooyin fara badan ku haya bal intaanan u gelin qodobkaasi koronta ay falanqeynaya soo dhow السلام عليكم bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan qaasatan family xiisaa wararka waxay idin leenahay caafimaad iyo farxad ku waara sanad cusubna waa la galay ها ولا توتو هذا سنة ما نقدر هذه maxaa ku buuxsamay سجال لكن 29 ها okay aniga 27 iyo noqonay maadaama laba sano aad iga weyntaa هاي 27 sanadkan sanadka hore 21 waxa ahaa 26 hadda maxaa noqonaa 27 ها هذه maxaa noqonay meesha macnaha labada ah oo shan kaaga dhigay 7 قدي تدو aku baxsantahay marka sanad wanaagsan aan leenahay dadka inkastoo sanadka macnaha hijriya ama dadka muslimiinta Allah sanadka cusub u yahay laakiin macnaha anaga muddo baaldegeen laakiin se qof walba sanada ugu darsoomay waaya inkastoo bilaha la kala horeeyo Soomaalina waxaan kaga qayliyay fast January kulligeena wadanaa ma aqaan kulli ha markii macnaha de Facebook dadka soo saartay haleeyo sanadka u saarinana iskale fast January kulli ani adina ka soo bilaabo fast January ma kiro markii sanadka cusub u dhalanayo waxa ku soo dhacay habariyo u dirhiblo waar u dirqoonto u dirwixii dhan dadka marka kooda bisha January 2000 soo bilowda 93 dadka hadda joogo dhan dhashan kulli daawadiis ii gabadh 9 iyo meeqa أنا سأشي إيش انتهى معناها ايش انت أنا سوق سمارة بقى أيام معها ده يدبالمada aan kala saarno intii ka horeysa dabaalo waa saaxiibkay dadka markay da'dii dabaal loo qasaaray saac mar tusaale soo qaado koronta kaliya noqonayaan maanta arabna barnaamijkan xogaa inaan ku yeeray sheekeysano waayaha ugu dambeeyay waxa jirtaniyo ha qodobkii ku soco ka sarabay waayii ugu dambeeyay waxa aad u soconayay oo aad loo hadalhayay arrimo la xiriira qoysaska qaasatan dadka ku shaqeysta arrimaha fal wala fal hebel wala fal ma beer ma kala falay sixir laakiin ana ka fal ma kasanay fal degora laga sameeyay inta qaniya hebel wala falay goboladaas ma lagu falay ha ma wali mana ma falniyo wali mana ma farantahay arrimahan mas'aranta sixirka waaya arrimaha la xiriira jinka dada ku shaqeysta marka waaya dadkaas iyo dadka ay ka faa'iideystaan inta badan ayaa rabnaa barnaamijka inaan ku gorfeeno anna waxaan ka mid ah dadka inta badan xooraansado marka Cabdiqaadir barnaamijkan wuxuu ka noqon doonaa marti waaya koronta waxaan nooga warantaa inta aad ka warhayso horta arrimaha sixirka waa ka dhex jira bulshada laba qof la kala geeyay dad baa la isku diraa qof macnaha soo shaqo haysto macnaha xogaa waxayna ka dhalatay xaasinimada qof soo shaqeysta inta badan macnaha in loo qori waayo laga daba gidiyaa amaba in la sixro ama la falo kadib meesha saga carara shaqooyinka istaagaan si kala noqda bal arrimahaasi maxaad bal kaga warantaa horta dadka ugu badan ee laga faa'iideysto maaragtay arrimaha shaqada ma ahan arrimaha hinaasaha waa masiirka ha naaga muxuu ahaa naag kale la soo gursanaya waxay leedahay hiblaayo intaysan saas ku yeelin bal ninka soo jiido marka waxaa jira dad ku shaqeysto propagandada oo arrimahaas inta badan haweenka u nugul iyo muxuu ahaa in muxuu ahaa dhiil fara badan ay ka helaan u nugul ama ha noqoto arrimaha masiirka ama ha noqoto arrimo kale oo la xiriira xifaaltan la xiriira ama si kasta ay noqoto markay noqoto Muqdisho markay ay noqoto dalkan Kenya haba loo kala badnaado iyo qurbaha waliba Mareykanka aad looga cabaadaya Mareykanka aad baa looga cabaadaha magaalada Nairobi aad baa looga cabanaya waliba Nairobi waxa lagu leeyahay waayihii ugu dambeeyay adalaynta markii hore Mombasa loo aadi jiray hadda xaafad dariskeena loo aadaha la leeyahay maxaa la sameeyaa dad baa waxay xanaaneeyaan lagu leeyahay shimbira cad oo waaba laga ganacsadaa lagu leeyahay in qof lagu sixro in qof lagu dhibaateeyo marka
marka qofka waxaa adiga hataa hadda waxoogaa yar cuyuunta bahasha la yiraahdo dad waxaa arkaysaa laga soo kor hadlay inkastoo saaxiibkay muxuu ahaa afarxaas lownaay wax kale uu ku sheegay cuyuun baa jirto waxaa la yihahdaa meesha il bini aadan gasho ayaa jinkana uu galaa ayaa la yihahdaa sida asal ahaan aan ku maqli jirnay qofka markii laga soo kor hadlo kale ayagii haddana loo geynaya waxaa lagu leeyahay bal ka waran marka qofka markii la wareysanaayo oo dadka arrimahaas ku shaqeysta inta badan cabdiqaadir waxaa lagu leeyahay qof walba oo bini aadana jin ayaa muxuu ahaa isha ku mataanaysan qaarkood way islaamaan qaarkoodna muxuu ahaa siyaabo kale ayay kaaga faa'iideysanayaan adkaarta faraha badan ee la akhristo muxuu ahaa xusnu muslimka oo kale musqusha marka aad gelaysid marka aad kasoo baxayso guriga marka aad gelaysid marka aad seexanayso adkaaraha la aqriyo iyo ducooyinka la aqriyo inta badan waxaa loogu talagalay jinka inuusan sirtaada uusan ogaanin loogu talagalay laakiin haddaadan duco aqrisanin muxuu ahaa musqushii aad iska gasho qolkii aad iska gasho aad iska seexato lebiska marka aad xiranayso ducooyinkii oo dhan inkastoo hadda waayahan dambe hadda marka hindish qofka uu dhaho alxamdulilah qofka leeyahay qofka kale yarxamakallah yahdikumullah soo ma ahayn yahu lagu leeyahay hadda markaa hindishadii aa lagugu celinayaa ducooyinkii iyo si kalaa loo fasiray hadda markaa qofti soomaali aad tiraahdo uu hindhisho alxamdulilah qofka kale yarxamakallah ilaahay idin soo hadeeyay qofka hadduu dhahdo waa lala dagaala waraa ma anaga hanuunka ilaahay ma muxuu hadda ma anaga soo hanuunayna sooma hanuunsanina lagu leeyahay yahdikum allah micnaheedu maxay tahay waa allah idin soo hadeeyay waa wax kale maaha micnaheeda ilaahay ha idin naxariistana ya si kale anaga u qaadan waa duco mar walba naxariista alla waa loo baahan yahay laakiin soomaali maxay ku xariiqeen qofka markuu dhinto le in ilaahay uu naxariisto igu soo laabo sheekada aan ugu soo laabto horta waayihii ugu dambeeyey arrimahan micnaha sixirka iyo arrimahan oo jinkan iyo waxaan la xiriiro dhammaantoodaba waa horta mashruuc business ah oo meelahan dubayda haddaa arki jirtay waa aragtama mingiska laga tumo shaqo waa marka dad unbay shaqo u tahay arrimahan sixirkana dad unbay shaqo u tahay marka horta intaanan aniga iyo afaarahayga gudagelin bal aan horta marka ugu horeyso sheekh maxamed shibli aan bal yara daawano fikirka dhanka diiniyan uu ka aaminsan yahay dadkan la shaqeysta jiniyada arrimaha sixirkana waa kolley way la xiriiraan sida aan jeclaa bal aan yara daawano qur-aankaa lagu sheegay inahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqan duqyaan iyo dulmi iyo dalaal bay u ziyaadiyeen jin la magan galo diinteennu ma ogola laakiin waxay ogoshay diinteennu taqaanaa ilaah la magan galo jin iyo insiba sharkood laga magan galo mid baan idiin sheegay marka marba muddaa loo qabtaadaasi waa mashruuc ganacsi horta abdulqaadir waa mashruuc ganacsi waxaad arkaysaa qofkan waa xanuunsanayaa wadaad buu u tegayaa fay buu dhahayaa way dhacdaa mudduu u qabanayaa muddadii marka la gaaro wuu xanuunsanayaa wuu soo noqonayaa waxbuu u sameynayaa fay buu dhahayaa markaan u tagaba wadaadka khayr baa alla saaray oo carabkiisaa barakaysan oo markaa waan caafimaadaaba ku dhih muddaa loo qabtaa dadkana waxoogay baa laga daadsadaa taa way dhacdaa waxaa labaadoo dhacda cabdiqaadirow marka aad timaaddo si lagugu qanciyo ninkaad u timid inuu wax walba ogyaho weli yahay si lagugu qanciyo waxaa lagu leeyahay cabdiqaadir hebel hebel sow maaha haa sow halkaa ma degenid waxaad leedahay haa intaasoo caruur aad leedahay sow maaha alla sheekh ayaa u sheegay alla waa awliyaad hoosta ka dhih saaya saasaa dhacday sow maaha saaya saasaa dhacday sow maaha wax badanoo xogtaadii iyo khabarkaagiya baa laguu sheegi ka badanna in la ogyahaa laguu tilmaami alla waa runtii yaa u sheegay awliye weeye day halkaas
waxaan rabaa inaan ku ihahda mashruuca uu caafimaadaya qofku wadaadka markuu u yimaado markuu ka taga ama xirsigii iska gooyana uu xanuunsanayo iyo mashruucan xogtaada la sheegayo laba mashruuc oo isku meel ka soo fulo waay waxan waa mashruuc qandaraas iyo shirkadeed waay jinkan wax ku yeelaya iyo wadaadkaa shirkada way wada shaqaystaan jig ka soo sii dhegtana ugu sheeg inaan barakaysnahay wey markuu ku ii yimaadana waxooga inooga daadiyana daa ilaa muddadii laga gaaro adiga gebigaaga mashruuc aad ku jirtaaba qandaraas markaad xirsiga dhigta qabfal uu qaninay waad ku carari mid kale lagu soo xiri waxoogayana waa daadin tan xogta la ogaanayana qof kastoo bini aadama jin baa ilaahay ku lamaaneeyey nabigu alay sl markuu arrintaas sheegay waxaa lihi walaa anta adigana xataa rasuulka ilaahayow ani laftaydu waa igu lamaan yahay laakiin ilaah baa iga kaalmeeyo fa aslama wuu islaamay ama fa aslamu waana ka nabadgelaya jinkaasi waa lala saaxiibayaa kugu lamaan hadaba guriga markaad gasha bismi illaahi dhe musqusha markaad galaysa bismi illaahi dhe markaad wax cunaysa bismi illaahi dhe markaad seexanaysa bismi illahi dhe adkaarta akhriso waxaa lagu leeyahay ninka banaanka isaga xidh wey inta haddaad samayn weydo dalaq dalaq iska dhaqato wuu kula soo geli wuu kula seexan gogoshu kula tegi wuu kula cashayn hadalkaa tiri meeshaad istaagtay meeshaad wax dhigatay reerkaaga iyo xogtaada oo dhan buu hayaa isagaasaa xidhiir lala yeelan isagaa warbixinta iyo riboodkaaga gudbin riboodkaaga gudbin adoo xogtaada lahayoo lagaa warbixiyey baa dhiman markaasaa dhidi weliga yaa u sheegay dee waxbaa layn baa kugu xidhan fiilaa kugu tallaalan jina waayahay aad buu maasan yahay sheekh maxamuud maxamed shibli oo u waramayay sheekh cabdiqaadir cali xuseen koronto waryahay mana gaadaniyo madaxan iyo madaxda ismalaane maxaa dhaxay muxuu ahaa horta sheekha wuxuu ka sheekeynaya waxay ahayd arrimahan la xiriira dadka jinniyada la shaqaysto horta nin sixirool ah cabdiqaadir oo dabaq degan oo kaale arag ay u kala xiran tahay weli maarag may ma awooda sida la sheego qofka sixiroolaha wuxuu awoodaa inuu adi lacag hele uu ku dhaho ama macnaha uu been kuu sheego oo wuxuu yiraa madaxweynahan kaa dhiga lacagaan ku siinaa qofka aragtaan kuu keenaa intaan ku yiraa asiga laakiin ma awoodo inuu qabsado waa halku dhiga marka taas waxa ay beene macnaha beenaysaa shaqada uu haayo iyo waxa uu adig ku qabanaya soo qaban lahaa horta qof walba oo nin sixiroola oo arrimahaas falfalka ka shaqeeya u tagaay kolley waa un isku dembi waaye dhacdooyin fara badan oo la haayo waxaa jiro uu kusoo arooray arrimaha maseyrka waxaa leedahay qofkaas iisoo jeedi mar laala markaas sidaa tiraahdo qofkii waxunbuu isugu qasqasaa isugu dardaraa qalaf ninkii uu dilaa ninkii uu dhimanaa ninkaas yaa dilay adigaa dilay ayada qofkina wuxuu rabay inuu usoo jeediyo keliya ama haddii midda kale cabdiqaadir marka aa u tagtidna waxyaabaha ay dadka u diraayaan marka lagaaga sheekeeyo waa yaabaysaa hadda ka hor dhacdaan la kulmay dhacdada markaa la kulmay sina waa uga baxsan waayo familkeyga marka waxay dhaheen ilaa nin yahow si arrintan aada uga gaashaamato oo meel lagaaga saaro waxaan dadaa yaqaanee aniguna aad ba u da-yaraa waagaas bal waxaa la dhahay nin yahow nin hebela lagu geynaa meel ha lagaaga saaro kolley un fal maanan samayn laakiin inaa arko ninkaa wuxuu sheegaayo ayaa ugu tagay wax tallaaba maanan qaadin markaa u tagay wuxuu ku dhahay in meel lagaa saaro qofkaas ma rabtaa ha lagaa reeba ma rabtaa waa lagaa reebayaa haye wuxuu dhaha waxaa keentaa begel mataqaanaa raashinka lagu cuni jiray marka Soomaaliya joogo oo saxarada ka baxo luuq lagu saxarooday iyo waxyaabahaas ugu baxay iga nacsaday mana dhib xataa macnaha beeraha ka bixi karaa laakiin inta badan waxyaabaha uu ku baxo asaasa begelkaas isbaandes faanto saddex faantadii caadiga ah faantadii caadiga ah iyo isbaandes ma ku sheegay afartaas uu ii diray saddex ah isbaandes begel iyo faanto saddex miya ma xasuusan karo aad ba u dayaraa ilaa hadda haddaan soo xasuusto ilaa haddeertaan haddaan soo xasuusto oo ku qoslaa inkastoo tegistaas naftirkeeda ay dembi ahayd alla aan waagaa dembi dhaaf weydiistay alxamdulilah waxaan idiin sheegayaa ujeedka barnaamijkan aan u qabano waxay tahay in waayahan dambe aada usoo badanayaan gudaha dalka aad baa looga cabanayaa dowladdu waa inay
tallaabo sharciga ka qaadaa goobaha mingiska lagu tumo ee ku yaala magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka. magaalada Nairobi dadka ku shaqeeyo amaba u tago kolley muxuu ahaa ma qarsoomayo, ha u malaynin dhalaalkan iyo wejigan inay yeelanayso qof walaalkaa Soomaaliyeed haddaad dhibaatayso adduunyana ciqaaba ku mutaysanaysaa, aakhirana cadaaba ku mutaysanaysaa. waayo qof walaalkaa oo Soomaaliyeed aad dhibaataynaysaa mana qurux badnaanaysid, sokor iyo dhiikar iyo balaayo wax walbo muxuu ahaa ii sheeg inay kugu dhacaan waa suurtagal. midda kale sixirka wuu jiraa laakiin lama aamino lamana rumeeyo, laakiin mar walba ahi adkaarta iyo ducooyinka iyo muxuu ahaa ii sheeg qur-aanka ayaa waxay u yihiin xijaab. qofka haddii uu muxuu ahaa asagoo weyse qabaayo gurigiisa uu ka baxo inta badan waxaas ma arkayaan. laakiin haddii allah awoodda leh uu qadaro barnaamij kale ayaan jecelnahay hordhacayo u yahay inaan bal dad badan oo ka cabanayo ayaa jiro oo aan soo xigano weliba dadka muxuu ahaa isha ka cabanaya arrimaha falfalka la xiriira ayaa aada usoo badanayo. dhacdooyin badan oo lanooga sheekeeyey hebelaa saa la yeelay, hebelaa kan la yeelay waa maqalnaa, laakiin xigasho ma hayno. waan soo xigan doonaa hadduu allah awoodda leh uu qadaro. dadka ku shaqaysta arrimaha jinka iyo sixirka inay soo kordheen oo aad ay usoo badanayaan, bulshadana loo baahan yahay in laga wacyigeliyo ayaa ujeedka barnaamijkan uu yahay. aniga kale tan inta dib u kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa sidaa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.